السلام عليكم maalin wanaagsan soo dhawaada waxaan bilaabanaynaa barnaamijkeeni tababarka caafimaadka aan ugu talagalnay maanta jimcaha ah inaan bilaabno haddii alla idmo sidaad aragtaan waxa miiska inoogu muuqdo waxa waaye waa qalabyadii kala duwan oo fildiga caafimaadka la isticmaalay qalabyada wax lagu qalo kuwa wax lagu tolo kuwa wax lagu duro سيجرس من عودة كلا دوان بليدس كوا سكيمين كوا حلو خلاي إنتبه شروطوينكي بي وحلو عبراي أيودينتي بانديجكي أمان قلب كيوردن وإسبيتال كلا جهلاي كانوا لكم عودة سكلا دوان وينو ذا سارينهم غلافس كي استرال كي نان استرال كي جون كقلين كلا جوجلاي أمان قلب كيوردن وينو ذا يالان سمرك وحن بلابنا مانتا وحلو يقانو بيسك سكيلس حرفة أساسية وباهين هاي أرضية عفماتك كجيرة waa maxay xirfadda basic skillska waxyaabaha aad ugu baahan tahay inaad baratid si berito markaad isbitaalka u shaqeysatid maxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ayaan maanta isla arkaynaa marka inta koorsigan uu socdo afarta maalin waxaan ku dadaalinaa hadduu alla idmo in dhammaan waxyaabaha asaasiga oo qof arday caafimaad baranayo ha ahaado dhaqtar ama kalkaaliye waxyaabaha u baahan yihiin gebi ahaan inaan xooga saarno insha Allah oo si practically iyo theoretically labadaba inaan barano aan isku dayinaa waxaan xoog saari doonaa inta koorsigan uu socdo toddobadan qodob oo meesha inoogu qoran qodobka ugu horeeya waxa waaye how to do surgical surgeries oo ah sida loo sameeyo tuliimada qalinka qalin markuu qofka dhaawac uu soo gaaro sida tuliimada kala duwan sida wax loo tolo oo aan xoog saari doono si practical aan u arki doono oo surgerieski wax lagu tolay inta noocyada kala duwan iyo qalabkii la isticmaalay gloveska sterile lagu shaqeynaa iodintii wax dhan miiska inuu wada saariyeen oo aan si practical u arki doono haddii alla idmo waxyaabaha kale isla bari doono waxaa kamid ah surgical equipment oo ah qalabka wax lagu qalo noocyada kala duwan magacyadooda iyo mid walba shaqada uu qabto waayo isku shaqo ma ahan mid walba wuxuu leeyahay shaqo gooni iyo waxyaabo gooni lagu yaqaan ayuu leeyahay oo iyagana sidoo kale magacyadooda aan hal u dul istaagi doono iyo sida loo qabsado waxyaabaha ugu muhiimsan ah oo haddaadan garanayn qalabka hadduu ku yaalo laakiin sida loo qabsado aadan aqoonin waxa waa dhibaatadeeda leedahay laakiin qofku markuu yaqaan sida qalabka loola ciyaaro qalinkan waxa waa in badan ku guuleysanaya waxyaabo kale xoog saar doona waxa kamid ah injections durimada noocyada kala duwan dadka bilaadanka meeqmeel laga dura sidee loo dura waa maxay waxyaabaha qofka u fudeyn karo waxyaabahaas igana sidoo kale aan ka hadli doona qodobka afraad waxa waaye how to do cannulation sida kana loo sameeyo kanalada noocyada kala duwan oo qaane midkan waa jaallo midkan waa blue kalarkan blue number ayuu sheegay 22 waa jaalahan waxa waaye 24 waa 24 iyo jaal iyo 22 oo ah kalarkan cagaarka iyo buluuga waa labadooda isku size ma way kala yariin wayna kala weyn yihiin waxaana lagu talagalay xididada bilaadag maadaama ay kala weyn yihiin siday u kala yariin xididada u kala weyn yihiin ayaana kanalka lagu sameeyay iyagana sidoo kale baran doonaa way kalaradan lagu sameeyay size-da ee kala duwan iyo qaabka loo sameeyo iyo sida kanal loo xiray intaba practical oo isla arki doono isla sameyn doona haddii la idmo qodobka shanaad waxa waaye how to wear sterile gloves sida loo xirto gloves sterile oo waxa ugu muhiimsan ah gloves sterile in xirto wax fudud maahan maanta isla arki doona cidii hore u taqeeni waa okay cidaan aqoon insha Allah waa isla arki doona qodobka labaad waxa waaye how to insert catheter sida catheter loo geliyo horta hore catheter u geliyo catheter male mise female male sama okay male hore u geliyo sama okay ya kale waan arki doonaa insha Allah waxa inoo yaala xagga Mr. Cadaawe soo ma jeedaan Mr. Cadaawe inoo yaala asiga insha Allah ku practice doonaa waa toy fiican waay waxaad moodaa bil aadan meesha fadhiid dad badan markay galaaska soo galayaan way ka xinaan walaana samaan okay waan arki doonaa sida catheterka loo geliyo catheterka qofka gormaa la geliyaa gormaa la gelinin noocyada kala duwan catheterka u qaybsamo insha Allah iyagana isla baran doonaa qaabka loo geliyo iyo qodobka ugu dambeeya waa how to wear gowns qaabka gowniska la xirto gowns waxa waaye dharka qaliimada lagu galo ayaa waxa loo yaqaan gowns iyagoo waxaan haynaa oo artificial one time use ah wayno yeelan iyagan ku practice doona haddii la idmo sida loo gashanayo waxaa jira qaab loo gashtay qaab loo ilaaliyo sterility nadaafadda si maadaama qaybtaas oo dhan bukaan loogu shaqeynayo si aadan u taabanin waxaa jira procedure la maro oo marka la gashanayo procedure la maro procedure kasan soo isla arki doona so intaan ayaan xoog saarinaa maxaa ka maqan intaan oo xirfad ahaan aad u baahantiin aad barataan wax ka maqan ma jiraan haddii wax ka maqan ii sheeg oon ku daray waan isla barinaa insha Allah
haddii wax ka maqan yihiin ii sheeg waan ku darayaa qodobka 8 9 ka dhigayaa waana ku soo darinaa basic skills kan xirfadda asaasiga aan baranayn waan ku soo darinaa maxaa ka maqan hay bal fikir wax ka maqan haday jiraan hay okay haddii wax ka maqan markay waan isla bilaabnaa insha Allah how to do surgical seizures sida loo sameeyo surgical seizures oo ah tuliimada oo qof markii dhaawac uu soo gaaro sida loo tolo horta seizures waa maxay su'aashu waa maxay seizure waxa la dhahaa waa qodobo oo taxana ah oo lagu qabto maqaar ama tissue kala tagay si la isugu keeno xoog ama force isku hayay asal ahaan dabiiciyan oo kala tagay sida xooggaas isugu keeno way sababta xataa markii maqaarku u dhaawacmo maxaa la sameeyaa maqaarku waa la isku keenaa si maqaarku u reysado Soomaa maxaa la sameeyaa markii qodobo oo taxana ah marka seizures dad maqasho waxa waaye waa qodobo taxana oo lagu qabto maqaar ama tissue jirka gudihiisa ku yaala si la isugu keeno tissueska ama nudaha kala tagay heelin fiican u sameeyo oo u bogsado waxa jir noocyo kala duwan loo qaybiyo iyadoo loo fiirinayo nooc ugu fudud oo badan dadka isticmaalaan waxa leenahay types of seizures su'aashu waxa waaye types of seizures noocyada seizureska inta loo qaybiyo types of seizures waxa ugu horeeya nooc loo yaqaan simple interrupted seizure simple interrupted seizure simple interrupted seizure wax kale ma ahan waa nooc ugu fudud looguna isticmaal badan yahay waqti badan ka ma qaadanayo badan waxa la isticmaalaa markii badan wax emergency ahaan maqaarka si emergency aan isugu keenayso for example maqa skinka wuxuu kala tagay si aan aad u xooganin oo kale oo uma baahna tension xoogan iyo si cadays badan in la sugo kan u baahna waa midka ugu fudud la isticmaalo waa maqaarka skinka dhinaca ka soo galaysa dhinaca kale ka bixisa waadna xiraysa waan arki doonaa qaabka loo isticmaalo soo nooca hore waxa loo yaqaan simple interrupted seizure waxa kale jira noocyo kale oo iyagana loo yaqaan vertical matrix seizure vertical matrix seizure vertical matrix seizure wax kale ma ahan vertical matrix seizure waxa la isticmaalaa for example kaba soo qabo gacanta watan tusaale ahaan gacanta watan dhaawac bukaanka wuxuu ka soo gaaray meesha ayaa dhaawacantay gacanta watan laakiin meesha dilaacday waa meeshaas vertical matrix seizure horta kalmada vertical waxa waaye wax toosan waaye macnaha wax si toos ah loo sameynayo waaye هذا مركز ساعة وتاجنت وفيرتيكال وا لكن مركز ساعة وجيفته هوريزونتال وا سو سيجر كان فيرتيكال حدا ما سي فيرتيكال أهان أي الله طالع فور إكزامبل ماشي داو أنت وسمان مقارك 4 ملم وحكفك عملك تجلسان عاد كسر بحيسان أو بس كالقيت كسر هرجة 4 ملم عملك كسر بحيسان وحد كجلسة هذانا واي وتجلسة وتكسر بحيسان وحد كجشة 4 ملم ما إلا 20 ملم ميل كفك ماشي داوع مقارك waxaad ka soo baxday markaas aan u gelisid dhinaca kale 4 mm meel dhaawac ka fogaad ka soo baxday ama ilaa 5 mm waxaad ka soo galaysaa maqaarka fiidiisa hore oo meesha aad ka baxday hadda ayaad ka soo galaysaa waxaad ka bixaysaa isla ku-aadka meeshii ewl aad ka soo gashay oo maqaarka geesiis kale ilaa meesha dhaawacanta waxay leedahay soomaan maqaarka laba gees ay leedahay soomaan laba gees oo saan isku garab taalo soo intaad ka soo gashay intaad ka soo baxday haddana waxaad ka galaysaa ku-aadka maqaarka oo meesha ku aadan oo fiidda hore qarka ee meesha dhaawaca haddana waxaad ka bixaysaa isla qarka kale oo meesha ka soo horjeeda kadibna waad isku xiraysaa isku taageerinaysaa waan arki doonaa practical haddoo ale markaas waxaa loo yaqaanaa vertical matrix seizure waxaa ku xigmad loo yaqaano horizontal oo hadda aan ka hadlayno horizontal matrix seizure horizontal matrix seizure wax kale ma ahan wax weyn kagama duwana horizontal matrix seizure waxa waaye waxaad ka galaysaa inta around adiga 45 mm meel ka fog meesha dhaawac ka galaysaa waxaad ka bixaysaa opposite-ka meel ilaa 4 mm oo ku aadanad ka baxday laakiin kii hor vertical maxaan ka soo galayni markaan inta galan inta ka baxay ku aadkeeda Soomaan kan ku aadkeeda maahan dhinaceeda oo square ahaan dhinaceeda kale aad ka soo galaysaa waxaad ka bixaysaa dhinaca kale ee ku aadanad ka bixaysaa soo meesha aad ka soo gashay ku aadkeeda maahan dhinaceeda kale side-keeda kale right side-keeda kale ama left side-keeda ayaad ka galaysaa waxaad ka bixaysaa ku aadkeeda kadibna labadan isku xiraysaa waayo intaan ka galay intaan ka baxay
seizure-ka dunta way soo wareeginaysaa haddana intaan ka soo galay intaan ka baxay dunta saan u soo wareegto soo maahan kadib isku xirmaayo marka meeshii ewel aan ka galay iyo meeshii aan ka soo baxay soo meesha isku xirmaysa marka kaas noocaas waxaa loo yaqaanaa horizontal sababta xitaa maxaa loo sameeyey hab horizontal jiifta ahaan kii hore laakiin maxaa loo sameynaya vertical waa kana saan waa marka horizontal waa that's why loo dhahay marka horizontal iyo vertical badanaaba waxaa la isticmaalaa verticalka markii maqaarka si xoog lisugu keenayo tension for example maqaarka kale meel muscles oo xoogan oo tension waa muscleska meelaha maqaarka oo xoog ugu badan uu ku jiro waa waxa u baahan markay skinka aad u kala tagay sababta xitaa muruqa meesha ku jiro waxaad u baahan si xoog in isugu keentid oo kale waxaad isticmaalaysaa vertical matrix oo kale ama horizontal badanaa markii force badan loo baahan yahay tension badan ayaa la isticmaalaa waxyaabaha kale ugu badanaa la isticmaalo waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano simple running seizure simple running seizure simple running seizure ka aad u fududiya waad sameyn doontaan aad u fududiya kan simple running seizure waxa waaye gacanta marka saynta kale ama xubinta dhaawacanta oo kale badanaa vitriska loo isticmaalaa iyo waxa loo facial oo kale soo marka facial marka lagu tago waxaa loo isticmaalaa seizure continuous markaas inta oo kale inta ka galaysa waad xiraysaa kadib inta ka soo galaysa inta ka bixisa inta ka soo galaysa inta ka bixisa saas u soconaysa continuous ilaa geeska kale aad ku tagtid waad xiraysaa kadib soo macnaha marna ma jaraysid waa laakiin kuwani waxa waaye waad xiraysaa kadib waad jaraysaa samayn laakiin kan lama jarayo kan waxaa la jarayaa markaad dhamaysid un baad jari doontaa hadduu alla idmo soo qaybta ugu horeysa ka soo galaysa meeshaad xiranaysaa kadib waxaad ku soconaysaa bidaxa ka soo galaysa midigad ka bixaysaa bidaxad ka soo galaysa midigad ka bixaysaa ku soconaysaa ilaa aad geeska kale ka tagtid geeska kale marka ka tagtid ayaa tahay garaynaysaa kadib waad jaraysaa that's called mar continuous means waxa waaye wax socdo waa simple running waa la continuous waa la magac kale waxa loo yaqaanaa continuous seizure waa la continuous seizure waa la labadaas magac way leedahay continuous seizure iyo simple running seizure inta waa la waxa kale ku xiga nooc kale oo caan asna loo yaqaano subcorticular waxaa loo yaqaanaa subcorticular seizure misla socona ma soo kala harsana ya igu soo celinay vertical matrix seizure vertical matrix seizure maxaa la markii maqaarka uu kala tago maqaarkan waxaan rabaa for example meeshaan dhaawacantay inaan seizure-ka nooc loo yaqaano vertical matrix inaan ku dabaqan rabaa inaan seizure-ka noocaas isticmaal rabaa saan u isticmaalaysan u tolaya markaas waxaan kasoo vertical meelaad kasoo galaysa oo 4 millimeter dhaawac ka fog haye haye 4 millimeter meel kale oo ka fog ka bixisa haye ku aadkeeda oo maqaarka geeskiisa ayaad kasoo galaysaa isla ku aad kale ka bixisa badan markaad galayso kale waxaa loo galaa xagal oo 90 degree ah ama waxaa loo yaqaanaa perpendicular macnaha markaad galayso 90 degree kale loo soo 90 degree waxaa la badanaaba cirbado kale sab ahaan 90 wax taagan la Soomaan 90 ahaan aad soo galaysaa waan arki doonaa practical insha Allah subcorticular wax kale ma ahan corticular waxa laga soo gaabiyay cutaneous oo naqaana maqaarka waxa loo qaybiyaa 3 layer maxay kale 3 layer skin layers ma qawa lakabyada maqaarka 3 maxay kale yihiin ko epidermis ka ugu koray epi means above wa epidermis dermis iyo hypodermis dermis midka ka hooseeyo hypodermis micnaheedu waxa waaye below dermis waa dermis ka hooseeyo iyo hypodermis saddexaas loo qaybiyaa hypodermis markuu wuxuu caan ku yahay tissues far badan waxa ku jiro fats far badan ku jiro subcutaneous Allah magac kale uu leeyahay waxa waaye subcutaneous waa samaha badan marka waxa la isticmaalaa marka seizure-kani waxa la marsiinayaa subcutaneous ka hoostiisa la marsiinayaa lama rabo meeshaan ayaa la talay lama dhahayo waana waxyaabaha ugu badan la isticmaalo cosmetic surgery ahaan loo isticmaalo waliba qaasan abdominka oo kale qofku markii qalinka markii u horeyso oo la sameeyay tahay oo kale uusan scar iyo hoosan boog hore uusan u lahayn oo kale ay ku qurux badan tahay so marka waxa sameynaysaa dhaawac markuu isaan yahay oo kale for example meesha dhaawac markay isaan tahay oo kale waxaad marsiinaysaa qaybta hoose gudaha marsiinaysaa gudaha ujeedada cutaneous-ka hoosaad marsiinaysaa hadhow markaa soo jiid marka marnaba ma arkaysid seizure-ka lama arkaayo laakiin kuwani maxaa waa seizure-ka wuu muuqdaa banaanku yaala laakiin kuwani waxaa waa seizure-ka gudahu galaya ilaa waxaan talayna cutaneous-ku waa layer-ka saddexaad ayaan talaynaa soo lama arkaayo marka waxaa laga arkayaa labada gees dunta markay kasoo baxda un baa la arkayaa markaasna waxa waaye waa mar macnaha waxaa sababta laba dhinac loogu reebay waxa waaye haddii ay tahay non absorbable waa la fujin doonaa haddii absorbable ay tahayna
jirka ayay ku milmi doontaa oo lama furi doono. So marka subcuticular waxaa la lahaa seizure waa seizure-ka markii subcutaneous lagu talaayo ayaa loo yaqaana. Idan sidoo kale waan isla arki doonaa hadduu alla idmo. waxaa kaloo ka mid ah nooc kale loo yaqaano simple baric seizure. waxaa kaloo nooc loo yaqaano simple baric seizure. simple baric seizure. simple baric seizure waxaa waa fudud yahay. kamadan baric means doogid waa. seizure waa doogaysaa. For example midaan hadda xogaa ka dhowdahay qofka meesha dhaawacantay markay sidaan ay tahay oo kale. For example meesha dhaawacantay markay sidaas ay tahay waxaad ka soo galaysaa around the subcutaneous ka soo galaysaa meeshan waxaad ka soo bixaysaa qaybta kale ee ku adkaysa ee subcutaneous ka soo bixaysa oo isku xiraysaa kadib oo isku taageerinaysaa. lama arkaayo seizure lama arkaayo. waa subcuticular-ka oo xoogaa la xirfadeeyay waa. idan sidoo kale si practical aan arki doona hadduu la idmo. dunanka la isticmaalo marka laba loo qaybiyo guud ahaan. haddaad maqashid dun waa naqaana Soomaa waa wax lagu tolaayo waa. dunanka wax lagu tolo guud ahaan laba loo qaybiyaa. either inay tahay absorbable seizure or inay tahay non absorbable seizure oo ah seizure kan duntan waxa waaye waa mid jirka ku milmaysa. absorbable means waxa waaye way milmi kartaa waaye. non absorbable waxa waaye waa wax aan milmaynin. so haddii duntan ay tahay dun jirka gudihiisa loogu soo tagaayo oo aysan jirin ujeed dhakhtarka uu rabo in duntan dib loo furo oo gudaha maqaar wax walba gudaha maqaarka lagu talo maqaarka waxa ka hooseeya wax walba lagu talo lama furi karo. xitaa non absorbable mararka qaar waan arki doonaa gudaha lagu tolaa. suuragal ma tahay in dib loo furo? macquul maaha. so marka laakiin badanaaba absorbable waxaa loo isticmaalaa gudaha jirka si aan loo furin. non absorbable waxa waaye badanaa waxaa loo isticmaalaa skinka sababtu waxay tahay iyada jirka kuma milmaysa. after 7 days 7 maalin kadib laga furaa bukaanka markii meesha ay raysto oo kale. iyada sidoo kale waxaa loo yaqaanaa non absorbable loo yaqaanaa. okay absorbable maxaa ka mid ah marka? for example okay example of absorbable seizure maxaa ka mid ah? example of absorbable seizure waxaa ka mid ah kow Vigril. way ku jiraan dhammaan waan arki doonaa. waxaa kaloo ka mid ah nooc loo yaqaano chronic catgut. non absorbable waxaa ka mid ah kow waxaa ka mid ah brobilin ama borolin mid oo taqaanaan. waxaa ka mid ah borolin ama brobilin saa u taqaanaan. waxaa kaloo ka mid ah nooc loo yaqaano silk. way noo tala silk idin sidoo kale waan arki doonaa. waxaa kaloo ka mid ah nooc loo yaqaano nylon. saddexdan ugu caansan idin sidoo kale non absorbable sababtu xitaa iyaga saddexdan badanaa waxaa loo isticmaalaa above the skinka loo isticmaala badanaa waa upper layerka skinka loo isticmaalaa. dib ayaana loogu furi doonaa qofka. guud ahaan intaan loo qaybiyaa. waxaa kaloo badanaaba loo qaybiyaa qaab kale oo ah natural iyo synthetic. waxaa kaloo loo qaybin karaa natural iyo waxaa kaloo loo qaybin karaa synthetic. natural waxa waaye waa mid dabiici ah oo badanaa wax natural ayaa laga keenay. iyo synthetic oo badanaa wax la farsameeyey oo qaabab kala duwan isugu jirta. iyo nooc kale saddexaad buugtan way ku daraan laakiin badan labadan waaye. nooc kale saddexaad baan ku daraan waxa waaye metallic. iyaguna sidoo kale sambuukas waxay ku daraan. iyo nooc saddexaad waxa waa asna metallic. so saddexdan waa loo qaybiyaa natural, synthetic iyo metallic. absorbable iyo non absorbable inta waa loo qaybiyaa. waxaan rabaa markaan isla fiirino why seizure loo sameeyaa yaa ii sheegi kara iga jawaabi kara. markii for example qof dhaawac uu ku yimaado why qofka loo tolaa? so waa maxay goals of seizure? ahdaafta wax loo sameynayo tulin qof sababta loo talay maxaa waaye? goals ka dambeeya maxaa waaye? kow waa banaanka taala waa fududahay dhiig socda in la joojiyo. yes dhiig joojinta waxaa loo yaqaanaa marka qoro biri way ku soo maraysa waa laga rabaa hemostasis loo yaqaanaa. number 1 ahdaafta u sameeyna waxaa kow hemostasis dhiig joojin in qofka dhiigga socdo maadaama qof dhiig baxa istaalka lagu keenay qofkaasi in dhiiggiisa la joojiyo. waxaa kaloo ka mid ah kow in ay ka caawisaa oo kale aid wound healing. waxay kaloo meesha ka caawinaysaa in la tolo inay si fiican u bogsato. aid wound healing meesha inay bogsato oo kale
ayay ka caawinaysaa wound healing oo kale in sidoo kale aad ay uga caawisaa waxaa kaloo laga hortagaa infection haddii meesha la tolo iyo markaan la tolin markii la tolo goormo infection ku dhalan karaa markaan la tolin haddii la tolo laakiin infection waayo meesha way daboolan tahay waxay kaloo ay ka hortagaysaa in meesha la tolo avoid waxay ka hortagaysaa infection wound infection avoid wound infection so marka berito markii lagu weydiiyey adoo isbitaal jooga dhakhtarka wuxuu ku weydiiyey wuxuu ku dhahay bukaankan way u talaysaa why marka su-aasha lagu weydiiyey waa kana marka because of hemostasis I want to achieve hemostasis waxaan rabaa inaan dhiig joojin aan gaaro I want to prevent wound infection waxaan rabaa inaan ka hortago meesha inay caabuq ay qaado waxaa kaloo dhigaysaa I want to provide adequate tension waxaan rabaa meesha inay si tension fiican si u reysato waxyaaba laga rabo inaad sheegtid oo kale yes soo ma jeed I want to aid wound healing waxaan rabaa in aan ku caawiyo si ay meeshaan u bogsato so ahdaafta loo sameeyo marka ciwaankeeda muxuu noqonaa marka goals of surgery and surgery ahdaafta tulinka loo sameeyo why tulinka loo sameeyo ayay noqonaysaa inta misal haynaa waxaan umaleynaa surgery waa ka gudbi karnaa